نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد إخواني في الله، duu allah subxaanahu wa tacaala idmo waxaan wax ka taabanaynaa ducada iyo fadliga ay leedahay waxa muslimka mar walbaba laga doonayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xiro oo ducada uu badiyo. waxayna ka mid tahay waxyaabaha aadka iyo aadka noogu yar marka aad loo fiiriyo dadka cibaadaadka la qabto. cibaadaadka aadka noogu yar oo waqtiga iyo juhdiga la geliyo ay aad u yar tahay ayay ka mid tahay ducada. codkayga ma la maqlaa? baaraka allahu fiikum. ducada marka waxaa laga rabaa qofka muslimka ah in qof walba oo waxa weeye waalaha dadka muslimiinta ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala fadli badan buu ku bixiyaa. qaybaha ugu waaweyn ee addoommada laga doonayayna ka mid tahay, waxyaabaha ugu fadli badan bay ka mid tahay. sida caadada ii ahaan jirta insha allahu tacaala qodobadii tobanka ahaa aan mawaadiicdayda ku wadi jiray ayaan wax kaga tilmaamaynaa 10 qodob oo ay baryadu fadliga ay leedahay. qofka muslimka haddii uu la yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abaalmarinayo. in la badsadaana waa shay diinteenna ka mida oo cibaadadii ka mid ah. haddaba fadligaa ugu horeeya ay ducadu leedahay inuu qofka muslimka u ogaado adducaa'u taacatun wa imtithaalun liamri illahi jalla wacala. ducadu iyo baryadu inay taaco ay tahay siinaya can cibaadatii baryadayda iyo cibaadadayda sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. waxa ay gelayaan naarta jahannama ayaga oo ku waaraya. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu addoommadii faraya, dadkii mu'miniinta uu farayaa in ay badiyaan baryadiisa, waanan ka ajiibayaa buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala. qofka iska weynaysiye ee ducadii ka taga, allah subxaanahu wa tacaala waxa uu u ballan qaaday in ay gelayaan naarta jahannama oo ay ku waarayaan. marka shardiga koowaad ama fadliga koowaad ee qofka muslimka laga doonaya waxa weeye in uu baryada iyo ducada uu badiyo. amar weeye, taaco weeye, imtithaal iyo hoggaansi weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala amarka uu bixiyana ikhtiyaar kama yeelan karno. waad aragteen qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qaano oo u habboon ma aha qof mu'mina iyo haweenay mu'minada hadday xugmiyaan ay gooyaan allah iyo rasuulkiisa amar an yakuuna lahum alkhiyara, in ay ka yeeshaan khiyaar oo naftooda sida ay doonaan ay yeelaan. wax lagu yaqaana dad mu'mina ma aha ayuu allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. haddaba qofka mu'minka wax laga doonaya waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansamo oo uu qaato awaamirtiisa oo uu noqdo qof mu'minah oo waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala noqonayo qof u hoggaansamaya arrimihiisii. oo qofka mu'minka laga doonayo qofka mu'minka inuu noqdo qof taaco ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa qaadanaya. taana waa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada uu ku hormarinayo fadliga ay leedahay ducada. qodobka labaadi waxa weeye adducaa'u cibaada. ducadu waa cibaado, waa sida salaadaha, soonka, xajka,
waxaasoo dhan bay la mid tahay oo qofka muslimka cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadaadkiisa oo qabanayay ka mid tahay. qof walbaba naftaada iyo naftayda ka soo qaad, bal heerkee baynu ka gaarsiisannahay cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanay in aanu meeshii la rabay aanu gaarsiinay, mise xilliyada keliya faraha intaynu godgodno ayaynu ka dhaqaaqnaayo ka tagnaa. cibaadadan waxay ka mid tahay cibaadada dadka muslimiinta. laba shay baa hadda meesha yaal. dadkii waxa weeye hore ama dadka waxa weeye xoogaa caqiidadooda ay qaldan tahayna way ku xadgudbaan oo xadgudub badan bay gaarsiiyaan, ilaa ay gaartay in ay qubuuraha baryaan in qof dhintay wax ay ka raadiyaan. kuwaana xadgudub bay ku gaareen. dadka kale ena waxa weeye xoogaa way yaraysteen oo way fududaysteen cibaadadaasi meeshuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaarsiiyey. xadiis nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhu uu werinayo ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay, adducaa'u huwa alcibaada. ducadu waa cibaado ayuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. u fiirsa arrinkaa. rasuulku waxa uu leeyahay ducada iyo baryadu waa cibaado. cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee la adeecayo ee la raacayo ayay ka mid tahay. waa ibtihaal iyo tadarruc. qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isu bihinbihinayo, gacmaha u hoorsanayo, xaajaadkiisa iyo baahidiisa iyo dantiisa uu u bandhiganayo. qof walbo annaga naga mid ah baahi iyo xaaje u gooni ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warqabuu leeyahay. qof baa toobad doonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka toobad aqbalo. qof baa dembaabay oo rabo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqdo. waxa weeye wax walba oo qofka niyaddiisa iyo qalbigiisa ku haya allihii khaaliqi asamaawaati waalardi ahaabaa la socda. marka haddii uu addoonku ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha u hoorsado oo uu baryo, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalayaa. waxay cibaadadu keensanaysaa qofkii waxa weeye inkisaar iyo iskaan iyo ilaahay hortiisa intuu tago isu tadalluliyo tabarruc oo xiilad iyo quwo midna inuusan lahayn ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u kaalmaysanayo keligii ma ogiye meel kale ugu hagaagaya in aysan jirin. bal cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu xadiiskii saxiixa ahaa ee rasuulka sala allahu calayh wasalam laga warinaye ee uu soo saaraya imaamu xaakim, sheekh naasiruddiin albani raximahullah silsilatu axaadiisu saxiixa uu ku keenayo, rasuulku waxa uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam, afdalu lcibaadati adducaa. cibaado midda ugu fadli badan ducada weeyuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal bal cibaadada u fiirsada. rasuulku uu leeyahay cibaadaadka la qabto waxaa ugu fadli badan ducada iyo baryada oo lala yimaado. maanta waxaa cajiib ah oo aad aan ula yaabay, maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin waxa weeye dhallinyarada ka mid ah ayaa masaajidka safka hore tegey. markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu sunnaystay oo uu baryada badiyey oo gacmaha uu horsaday, keligii baa murugaysnaa oo baryayey. nin dhallinyaradii ka mid oo ardo ila socday baa wuxuu yidhi, sheikh ninkaani naf buu gooyey oo madad buu dilay buu leeyahay. waxaa qariib ah oo cajiib ah qofka xoogaa hadduu baryada iyo ducada uu badiyo in musiibo ay ku dhacday oo kalaanu ka filanaynaa. saanu u qariibsanaynaa cibaadadaasi meesha ay naga gaartay. rasuulkana sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay, islaamku waxa uu bilowday isagoo qariib ah oo lala yaaban yahay, wuxuuna uu ku laabanayaa isagoo qariib ah. oo wax walbo acmaal oo islaamku shay walba oo wanaagsan lala yimaado dadku qurbo agtooda ay ka joogaan oo ay la yaabayaan. baryadii iyo ducadii la badinaye, cibaadadii la badinaye, afdalu lcibaadati adducaa. rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay waxa ayna tusaysaa in aan maanta qurbo ka joogno. wallaahi haddii maanta naftayda iyo tiina mid kastoo caawa waxa weeye wacdigaa dhegaysanayo loo celiyo, waxa uu ogaanayaa in uusan juhdi badan iyo dadaal badan uusan gelin ilaa qofna ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariistay mooye. inta badan waxaa yar inuu qofku khalweeyo oo keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala musallihiisa intuu dhigto gacmaha u hoorsado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryo oo uu tukado oo isu bihinbihiyo oo uu ooyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiisto wax alla waxa u baahan yahay. xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam kabta suunkeeda la xiranaya hadday kaa go-do weydiistuu leeyahay rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalam. marka waxaa laga rabaa qofka muslimka wax yar iyo wax badanba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiisto. sidaasaa waxay ku tusaysaa sha'niga ay leedahay ducada, amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixinayo. arfac waxaa weeye anwaacu cibaadada ugu fadli badan in ay ka mid tahay.
arrinka noocaasee rasuulku uu tilmaamayo in aanu yaraysanay. fadliga afraad ee ay ducadu leedahay, adducaa'u akramu shayin cala allahi tacaala. ducadu waa shayga qofka loogu karaamayn og yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka uu ku karaameeyo. shayga addoonka lagu sharfo ee lagu karaameeyo haddii uu la yimaado cibaadada waxaa ugu horraysa ducada. qof waxaa jira hadduu shay la yimaado la karaamaynayo oo la sharfayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa laga soo dhowaynayo. ducadu waxay ka mid tahay waxyaabaha la isku karaameeyo ee la isku sharfo. waxaa noo tilmaamaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiis abi hurayra uu werinayo oo uu soo saaray imaamu termedi, sheekh naasirna termedi uu ku saxiixinayo. waxa uu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam, laysa shay-un shay ma jiro akrama cala allahi allah uu ka karaamayn og yahay qofka dushiisa tacaala sarreeya min adducaa'i oo ducada ka weyn ma jirta. shay ilaahi subxaanahu wa tacaala, laysa shay-un akrama cala allahi tacaala min adducaa. ducada qofka wuxuu ilaahay uga karaamayn badan yahay qofka insaanka ma jirto. qofka mu'minka waxa ugu badan ee lagu karaameeyo ee lagu sharfo waxa ugu weyn buu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam, ducadaa ugu weyn. haddaad doonaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku karaameeyo, ay karaamadaa waxa weeye akthara karaamatan wa aclaa qadaran wa arfaca darajatan, waxa weeye fa huwa axraa bilistijaabati waalqubuul. waxyaabaha ugu aqbalidda og ee markiiba laga ajiibayo ee qofka la siinayo baryadiisa iyo ducadiisa ilaahay uu ku karaamaynayo baryadaa ka jirta. in aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala barino wax walba oo aynu u baahannahay, rag iyo dumar, waa khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada ooga dhigay in ay qasnadihiisa ku furanayaan, inuu khayr ugu soo dejinayo, inuu wanaag adduun u ku siinayo, in dhibaatada iyo musiibada looga celinayo, in barwaaqo iyo khayr loo furayo. waxa ay jecel yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo khayra uu ku siinayo. fadligaa aadka u weyn ee shayga qofka lagu karaamaynayo waxaa mudan haddaba insaankii inuu dar yeelo oo ihtimaam goonni oo uu siiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryo. fadliga shanaad ee ay ducadu leedahay waxa weeye adducaa'u sababun lidafci ghadabi illah. ducadu waxay ka mid tahay sababaha la iskaga celiya carada allah subxaanahu wa tacaala. carada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa lagu damiye looga horgeeyo waa baryada ilaahay subxaanahu wa tacaala. insaankii inuu baryo ilaahay marka aadan barin oo kuu caroonaya. mar alla markaad barido oo aad gacmaha u hoorsatana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku jeclaanaya. bal hadalkaa aad ugu fiir nebiga calayhi salaatu wasalaam min xadiisi abi hurayra radia allahu canhu rasuulka waxa uu leeyahay, innahu man lam yas'al illaha yagdab calayhi. allah subxaanahu wa tacaala qofka aanan waxba weydiisan alla waa u caroodaa. wuxuu xadiiskana tusayaa anna ridihiisa iyo su-aashiisa iyo daacadiisa wuxuu addoonka oga raalli noqonayaa. kullu khayr iyo ridihiisa waxay ku jirtaa balaa iyo musiibo iyo looga hortegayo in aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala barinno, inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax weydiisanno. waanu gafaynaa, insaan baynu nahay, khata' baa naga dhacaya, carabkeennu ka dhacaya, xubnaheennay ka dhacaysaa, maalin walbaanu dembaabaynaa. waxa allah subxaanahu wa tacaala caradiisa aanu ku damin karno, aanu kaga horgeyn karno waxa weeye in aan ilaahay subxaanahu wa tacaala barinno oo aan gacmaha u hoorsanno oo aan weydiisanno. aysan naga noqon 5 daqiiqa intaan faraha laalaabno inaan horay ka kacnee, in aad baahantana aad muujisid. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonku baahidiisa waxaa lagu yaqaanaa shayguu ku celcelinaya, wakti buu siinaya, juhdi buu ku bixinaya. laakiin waxaad aragtaa maanta cibaadaadkii iyo masaajidyadii markaad aragto xataa subxaana allah, alxamdu lilah, laa ilaaha ila allah, wallahu akbar oo lala imaado 33 la yidhi, xataa qofku su u dhammaystiro way yar tahay oo uu u fadhiisto markiiba waa la degdegayaa, shaydaan baa jafaya oo dadkii kaxaynaya. marka qofka muslimka waxaa laga doonayaa in uu xasilo oo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xasilo oo baryada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xasilo. waxyaabaha wanaag adduun iyo aakhiro uu ku helayay ka mid tahay. qof walbaba u fiirso maanta waxa weeye waa wax xaqiiqo ah, weliba khaasatan dadka saxwada ee baraaruga diintaani ee ku jira waxyaabaha agtooda aad ugu yar ayay ka mid tahay. wuxuu odhanaya ninkii shaacirka ahaa, laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasalli aladii abwaabuhu laa tuxjabu. allahu yagdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadama xiina yus'alu yagdabu. wuxuu yidhi wiilkaygiyow, wiilkiisu waaninaya oo la hadlaya, wuxuu yidhi wiilkaygiyow ha weydiisanin, laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan.
wax xaaje iyo dana ibni aadan oo aan gacantooda ku jirin oo aysan kari karin ha weydiisan. wasalli aladii abwaabuhu laa tuxjab, weydiiso allah albaabadiisa aanan la xijaabaynin oo aan lagaa xiraynin. haddii aad garaacdo allahu yaqdabu, allah wuu u caroonayaa in taragta su'aalahu, haddaad baryadiisa iyo su-aashiisa iyo waxweydiisigiisa aad ka tagto waa kuu caroonaya. wa bunaya aadama xiina yus'alu yaqdabu, bini aadanka haddaad wax weydiisatana wuu kuu caroonayaa. bal u fiirso maanta qof bini aadana maalin wax weydiiso waa laga yaabaa inuu wax kuu taago, maalinka labaad haddaad ku noqoto su-aal badanaa buu leeyahay oo waa isgelayaa oo waa caroonayaa. ilaahina subxaana wa tacaala mahmaa aad badiso wax weydiisigiisa marka aad ku noqoto ayuu ku jeclaanaya. makhluuquna waa daciif weeye, wax gacantiisa ku jira ma jiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wax walbaba gacantiisa ay ku jiraan. taasaa laga doonayaa insaankii. fajcal su'aalaka lililaahi, su-aashaada iyo baryadaada allah u yeel. fa inamaa fii fadli nicmati rabbina nataqallabu, waxa aan ku dhex wareeganaynaa oon dhex maquuranaynaa nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey. indhaha yaa na siiyey, carabka yaa na siiyey, caafimaadka yaa na siiyey, amniga iyo barwaaqada yaa na siiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa na siiyey. soo nimcadaa uma baahna inaan ka shukrino, bal ilaahay isagoo noo tilmaamaya waxa uu leeyahay nimcadaa la isa siiyey waxaaba yar inta addoome ee ka shukrisa. bal ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcooyinka uuna siiyey ma tirin karno oo ma koobi karno. marka waxaa laga rabaa insaankii inuu nimcooyinkaas iyo wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyey uu ka shukriyo oo uu ka noqdo. wax la koobi kara ma aha, wax la soo aruurin kara ma aha, wax la tilmaami kara ma aha nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey. allahna subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay isagoo qur-aankiisa noogu tilmaamaya wain tacuduu nicmata allahi laa tuxsuuhaa, haddii aad tirisaan nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiyey ma koobi kartaan mana soo aruurin kartaan. bal inteebu ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcana siiyey. bal u fiirsa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa nimco aan haysanoo dhan xaggiisay ka timid, cid kale nama siinin. wamaa bikum min nicmatin fa min allah, wax alla wixii nimco aad ku sugan tihiin oo dhan alla xaggiisay ka timid. alla idin siiyey. hurdadii waa nimco weeye, caafimaadkii waa nimco weeye, socodkii waa nimco weeye, hadalkii waa nimco weeye, indhihii waa nimco weeye. wajacalnaa lakum asamca waalabsaara waalaf'idata qaliila maa tashkuruun, waxaanu idin siinay samac iyo basar iyo caqli aad wax ku kala garataan, waxaana yar nimcadaasi inta ka shukrisuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay lain shakartum laaziidannakum, haddii aad ka shukridaan nimcada iyo wanaagga la idin siiyey allah subxaanahu wa tacaala wuu idiin zaa'idinayaa. haddaad ku kufridaan oo allah aad ka jeesataan nimcadiisana wuu idinka qaadanayaa oo wuu idinka ceshanayaa. soo ma habboona marka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qariiqa uuna faray, wanaagga uuna faray inaanu xaggiisa u degdegno. fadliga lixaad ee ay ducadu leedahay ee qofka muslimka laga doonayaa waxay tahay adducaa'u salaamatu min alcajzi, ducadu qofka waxay ka badbaadinaysaa salaamo ay ka tahay cajziga iyo kasliga. qofka mu'minka ah waxyaabaha ay ka saaraysaa ka mid ah. nebigu calayhi salaatu wasalaam min xadiisi abi hurayra ee uu tabaraani awsadka uu ku keenayo, sheekh naasir iddiin albani raximahullah saxiixu jaamicu sagiirka uu ku keenayo, waxa uu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam acjazu nnaas, dadkan kan ugu waa man cajiza, waa qofka ducada ka caajizay. bal halkan aad ugu fiirsan rasuulka sala allahu calayhi wasalam, dadka kan ugu caajis badan waxa weeye man cajiza fi ducaa. acjazu nnaasi man cajiza fi ducaa, dadka kan ugu caajis badan ugu liita waxa weeye qofka ducada ka caajisay. bal soo tilmaantaas maanta annaga nafteenna maanta ma tilmaamayso in aynu ka caajisno, in aynu kari weyno, inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala la khalwoonno oo aynu weydiisanno oo wax aanu barinno. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonku marka uu gooni la noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaaladdaasi waa xaaladda uu addoonku ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka waxa weeye wax la harsada aysan jirin oo dadka qorraxda dhalada laga saarayo, dad buu ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigiisa harinaya. kaasi waa kee? waa qofka intuu waxa weeye meel gooni tegey keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu xasuustay oo uu xusay la ilmeeyey buu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam. marka taa waxayna tusaysaa in qofka marka ducada uu badiyo inay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jeclaanaya, caajiska iyo kasligana ka qaadayo.
rasuulkana uu leeyahay acjazu nnaasi man cajisa fi dducaa wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam. dadka kan ugu bakhaylsanna waa qofka salaanta ka bakhayla. dadka kan ugu bakhaylsan waa dadka salaanta ka bakhayla ee dadka salaanta muslimiinta ah ka gaabsada oo ka bakhayla. waxaa laga doonaya qofka muslimka maxaa keenay maanta dadku inay cataabaan, raggu inuu cataabo. maanta waad aragtay laba qof meel isuguma timaado ilaa qof walbaba waa sheeganaya. gabadhii nolol xumay ka sheeganaysaa, hadday zawjkii kala tageen dhibkii iyo zawjkii bay ka sheeganaysaa, carruurtii looga tegay ka sheeganaysaa, waxay ka sheeganaysaa qof caafimaad xumuu ka sheeganaya, qof nolol xumuu ka sheeganaya, qof abaar buu ka sheeganaya, qof dhibaato iyo qax buu ka sheeganaya, qof cabsi iyo cadow buu ka sheeganaya. maanta sheegashadaasi waxa baxiyey ee badiyey waxa looga baxaya waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u noqonno oo aan u toobad keenno. catawga intaanu iska dayno ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walbaba wax uu weydiisto waxa uu jecel yahay oo uu rabo meesha laga hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu weydiisanno, allana waa naga aqbalayaa oo waa naga yeelayaa. taasna waxay ka mid tahay wax qofka muslimka uu ku gaarayo horumar adduun iyo mid aakhiro. fadliga toddobaad ee ay ducadu leedahay waxa weeye adducaa'u sababun lidafci lbalaa. u fiirsa xadiiska, ducadu waxay sabab u tahay ruuxa dhibka iyo balaayada iyo mixanka iyo imtixaanaadka kuwa haysta iyo kuwa ka soo socdo dhan ducadaa looga ceshaa. kuwa ka soo socdana ducadaa ka celisa, kuwa haystana ducadaa looga qaadaa. hadday qofku dhibaato haysato, haddii qofku walbahaar uu haysto, hadduu qofku wax murugoonayo, waxa looga qaadi karo waa ducadii weeye. hadday dhibaato ku soo socotay iyo musiibo ku soo socotayna waxa qofka hadduu ka horgeeya ka celinayo waa ducada weeye. nebi maxamed baa noo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. xadiis cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu uu rasuulka ka warinaya, rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxa uu leeyahay, xadiiskan imaamu tirmidi baa soo saaraya, sheekh naasir iddiin albani raximahullah isaguna wuu saxiixinaya. waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu calayh wasalam, ina adducaa'a yanfacu mima nazal. ducadu waxay anfacaysaa wixii soo degay ee mixan iyo imtixaanaad oo dhan qofku way ka anfacaysaa. wa mima lam yanzil, wixii aanan soo degin, wa mima lam yanzil, wixii aan soo deginna way anfacaysaa oo way ka hortegaysaa. facalaykum cibaada allahi bidducaa. addoommadii allow ducada qabsadou leeyahay rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam. haddaad doonaysid dhibkii iyo mixankii iyo balaayadii iyo imtixaankii in lagaa qaado, kuwa kaas kugu soo socdana aad ka hortagtid, rasuulku waxa calaykum cibaada allahi bidducaa. addoommadii allow ducada qabsada, ducada ku dhega, baryada qabsada. baryada waxa wax layskaga qaaday ka mid tahay. waa la is-imtixaamayaayoo lagugu deynmayo. sida aad tahay xaaladdu ma ahaanaysa, imtixaan baa imaanaya. addoon inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u baahan inaad tahay, inaad dhawaaqaysidoo aad qaylinaysidoo xasuustu ay kaa tegayso aad isku dardarsamaysid, inuu stress iyo isla hadal uu kugu dhacayo, iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu ku dejiyo xasillooni iyo tuma'niino aad ka qaadaysid, isaga aad u noqonaysid. taasaa lagugu imtixaamaya. waxa addoonku waxa weeye adduunyada loo keenayba noloshiisoo dhan baa imtixaama. allah waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala, axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun. dadkii ma waxa ay moodeen aamanaa intay yidhaahdeen in faraha laga qaadaya iyagoo aan la imtixaamin. saas ma aha xaaladdu. allah waxa uu leeyahay waxa aanu imtixaannay ummadihii idinka horreeyey, markaasaanu ka muujinnay oon soo kala saarnay kuwa ka run sheegayey iyo kuwa ka been sheegayey. sidaasuu allah subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamaya. sidaa daraaddeeda imtixaan imaanaya. allah waxa uu leeyahay insaanku jiritaankiisa ma jirin, sheegitaankiisa ma jirin. innaa khalaqna alinsaana min nutfa. insaankii annagaa nudfa iyo candhuuf ka abuurnay, la isku dheehay oo la isku geeyey. fajacalnaahu samiican basiira. waxaan ka yeelnay mid samac iyo basar looho wax kala garanaya. markaasuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo caddeeyey inaan waddadii u kala caddaynay, tii toosnayd iyo tii xumayd, xalaashii iyo xaaraantii, beentii iyo runtii. waxa weeye wax walbaba waanu u caddaynay. mid unbuu waxaan saa u yeelnay in aanu imtixaanno, ayuu allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. in aanu imtixaanno ayaanu sidaa u yeelnay. imtixaanka waxa looga bixi kara marka waxa weeye qofkii addoonkii hadday dhibaato haysatana inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryadiisa uu badiyo. haddii ay ku soo socotona ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhaafiyo oo masaa'ibta uu ka leexiyo. sidaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis kaloo salmaan radia allahu canhu uu warinaya, wuxuu rasuulku leeyahay sala allahu calayh wasalam,
laa yaruddu alqada'a ila adducaa. qadaha qofka waxa loo qoray waxa ka celinaya oo ka hortegi kara waxa weeye ducada iyo baryada weeye. qofka marka inuu baryadii uu badiyo, inuu qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u noqdo, waxay ka mid tahay waxyaabaha laga doonaya insaankii in uu la yimaado, ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu weydiiso. fadliga ay leedahay baryada, fadliga ay leedahay ducadu wax la soo koobi kara ma aha. qodobka waxaa weeye sideedaad ee baryada iyo ducadu ay leedahay, adducaa'u sababun linnasr. ducadu waxay ka mid tahay sababaha la iskugu gargaaro, sababaha ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka ugu nusreeyo. ma doonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu garabkaaga noqdo, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu gargaaro, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu heliyo? waxa lagu heli kara waa baryada iyo ducada weeye. u fiirsan rasuulkaa sala allahu calayhi waalihi wasalam waxa uu leeyahay xadiis saxiix oo ka sugan, innamaa yansuru allahu haadihi alumma. ummaddaani ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu gargaarayaa bidaciifihaa, kooda tabarta daran, bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim. dacwadooda iyo baryadooda, salaadooda iyo ikhlaaskooda, camalkooda loogu gargaarayaa. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu barinno, ilaahay wuu noo gargaarayaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo nusraynayaa, waxaanu doonno wuuna siinayaa, garabkanaguu noqonaya. annagaa nala ka doonayaa in aanu u soo noqonno ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu barinno, ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu wax weydiisanno, ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu gacmaha u hoorsanno, ilaahay subxaanahu wa tacaala aan noqonno kuwa isku xiran oo qalbigooda ilaahay subxaanahu wa tacaala u fura, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala niyadooda u bandhigo. wuu ka warqabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga waxa ku sugan, laakiin adaa lagaa doonayaa qofay baahidaasi hayso ma tahay, qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran ma tahay, taasaa lagaa doonayaa. taasuna ilaahay subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhiro nagu liibaaninayaa. cubaadat ibnu saamid, arrinka sagaalaad ee fadliga ay ducadu leedahay baa waxaa ka mid ah, adducaa'u khayru kulluh. ducadoo dhan waa khayr dhammaanteed. qofka haddii buu ilaahay uu baryo, kulligeed khayr bay u noqonaysaa. albaabadaa khayr ooga soo gelaya, wanaagoo dhan baa samada looga soo dejinaya, albaabada khayrkaa loo furayaa. bal qolkaaga adoo jooga, gurigaaga adoo jooga, ilaahay subxaanahu wa tacaala bari. wakti si aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baridid, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaajaadkaaga iyo dantaada aad u bandhigatid. walaalayaal, waxaa dhacda inta badan in aanu ka xishoonno, in aanu waxa weeye gacmaha taaganaba ceeb ay noola tahay, in qof musallafay oo abaaroobay oo ceyr ku dhacday inuu gacmaha hoorsado, iyo qof waxa weeye xoogaa masaa'ib ku dhacday. sidaasun baanu u fahansannahay ducada, laakiin sidaa ma aha. waa wax lagu yaqaano dadka saalixiinta ee wanaagsan, ee dadka khayrka leh, ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku ammaanay ee lagu hormaray ayay ka mid tahay. qodobka sagaalaad, adducaa'u khayru kulluh. rasuulka sala allahu calayhi wasalam min xadiisi cubaadat bnu saamid radia allahu canhu, waa rasuulka waxa uu leeyahay, maa cala alardi, xadiiskan aada ugu fiirsada. rasuulku waxa uu leeyahay, maa cala alardi muslimun, arlada dusheeda ma jiro ruux muslima oo yadcu llaaha bidacwatin, oo alla baryayo baryo, ilaa aataahu allahu iyaaha, baryadii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu siinayaa. oo sarafa canhu, wuxuu kaga leexinayaa baryadii uu baryey, min assuu'i midlahaa, intuu uu baryey xumaan iyo dhib ku soo socotoo kaluu kaga leexinayaa. maa lam yadcu biithmin, inta uusan baryin dembi, oo qatiicati raxim, ama qatiica iyo rixim goyntiisa haddii uusan baryin. markaasuu nin baa ka mid ahoo rasuulku markuu hadalkaasi jeediyaa wuxuu yidhi, nin saxaabadii ka mid ah, haddayba sidaasi ay tahay oo baryada ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka baryo uu siinayo, ama dhib ku soo socday oo kale uu kaga leexinayo, idan nuksiru buu leeyahy rasuulka sala allahu alayh wasalam, haddaba waan badinaynaa. allahu akbar buu yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam, inta aad badiso ilaahay subxaana wa tacaala aadna kuu badinaya. bal hadalkaa u fiirso, yaa noo tilmaamaya, waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxa uu leeyahay, arlada dusheeda ma jiro qof muslim oo alla baryaya baryo, ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baryadii wuu siinaya, ama xumaan iyo dhib buu kaga celinaya. saddex qodob buu rasuulku sala allahu calayh wasalam noogu tilmaamay. xadiiskan iyo riwaayaad kale haddaynu isu gegeyno, baryadu in markiiba lagu siiyo, in masaa'ib iyo dhib iyo xumaan kugu soo socota lagaaga horgeeyo, lagaaga celiyo, iyo in maalinka qiyaamo miisaanka laguu saaro. marna meel cidlaa dhici maysa. gacmaha aad hoorsatay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax aad weydiisatay, mar walbaba waa lagugu siinayaa, khayr badan baa lagugu siinayaa. haddaba haddii la badiyo, ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu kuusii badinayaa.
qof walbaba intuu ka duco badan yahay inuu ka baryo badan yahay ayuu waxa uu qofka muslimka ah laga doonaya in uu badiyo. aad bay ceeb noogu tahay maanta in waxa weeye arrinkaa cibaadadaas qiimaha badan dadkii wanaagsanaa ducaadii culimmadii iyo dadkii waxa weeye dhallinyaradii intaba ay ku yaraato cibaado laga haajiray bay noqotay in la soo celiyo weeye. waxaa ka mid ah waxyaabaha insaanka qalbigiisa ta'hiir ku samaynaya. u fiirso haddaad masaajidka soo gasho oo safka hore ay fadhiyaan mid qur'aan akhrisanaya iyo mid sunnaysanaya iyo mid ducaysanaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryaya, ma sheekaynaysid adiguna saad u socotaad waxa weeye qaanadii aadaysaayo kitaab baad la soo baxaysaa ama waad sunnaysanaysaa ama baryaad gelaysaayo dadkaa waxay samaynayaana qalbigaaga ku dhacaya. laakiin haddii la iska fadhiisto oo masaajidka aad ugu timaado dad sheekaynayo dhinacyada iska fafadhiyo waxa weeye adduunye iyo waxaan qiimo lahayn ka sheekaynaya, waa yartahay inaad cibaadaysato markiiba waxaa laga yaabaa sheekadaasi inaad ka qayb qaadato. marka waxyaabaha ibni aadanka ta'hiir ku samaynaya ka mid tahay, waxyaabaha raad ku samaynaya ka mid tahay, waxyaabaha insaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiguusa ku xirayay ka mid tahay ducada inaanan laga gaabinin oo siduu nebiga calayhi salaatu wasalaam u dardaarmay in loo fuliyaa waxa weeye qof walbaba laga doonayaa. bal rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam u fiirsa xadiiskii salmaan alfarisi radia allahu canhu ee uu soo saaraya imaamu tirmidi, sheekh naasir iddiin albani raximahu llahu isaguna uu saxiixinaye, waxa uu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay ina allaha xayiyun kariim. allah subxaanahu wa tacaala waa alla xayi oo nool oo kariim ahoo sharaf badan. yastaxyii idaa rafaca rajulu ilayhi yadayhi, waxa uu ka xishoodaa alleh hadduu addoonku gacanta xaggiisa uu u soo qaado an yaruddahumaa sifran khaa'ibatayni, inuu soo celiyo labadii gacmood oo maran oo waxa weeye dhurdarsaday oon waxba aanan helaynin. alla waa ka xishoodaa. shuruudihii ducadii haddii la helo oo ka horreeyayo waxa weeye in waxaad cunaysa xalaal ay yihiin, gacmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ikhlaaskii iyo daacaddii shuruudihii ay lahayd markaad la timaado addoonka ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu gacanta u taagto waa ka xishoodaa ayagoo maran in uu soo celiyo. waxaa qofka muslimka laga doonayaa marka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xiro, baryada uu badiyo. wax ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada ku jeclaanaya ayay ka mid tahay. qodobkeenna noogu dambeeya ee sida caadada ahay 10 qodob aynu u qaadanaynay, adducaa'u sababu libawsi maciyati illaahi tacaala. dacwadu iyo baryadu waxay sabab u tahay addoonku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maciisa noqdo, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la jiro. rasuulka sala allahu calayhi wasalam min xadiisi abi hurayra radia allahu canhu baa rasuulku waxa uu leeyahay ina allaha yaquulu ana cinda danni cabdii bi, anigu waxaan ahay addoonkayga malihiisa agtiisa. haddaad ilaahay khayr ka malaysatana khayr baad ka helaysaa. wa anaa macahu addoonka maciisa iyo garabkiisaan ahay oo waan la jiraa idaa dacaanii hadduu i baryo. bal xadiiska u fiirsan rasuulka sala allahu calayhi wasalam, addoonka garabkiisaan ahay, waan ka warqabaa, waan u taageerayaa, waan la jiraa. waa goorma? idaa dacaanii, marka uu i baryo. annagu ilaahay subxaana wa tacaala ma baryi karna. ilaahay subxaana wa tacaala garabkeennu noqonaya, maceennu noqonaya, wuu noo gargaaraya. haddii lagu dulmiyo dulmigaagu wuu kaaga gargaaraya. haddii aad wax dulmisayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xasuusinayaa dulmiga inuusan bannaanayn. gacmaha ma hoorsan karna, ilaahay wax ma weydiisan karna. cibaadadaani ha lagu mashquulo. waa wax ta'hiirkeeda la arkay, waa wax la tijaabiyey, waa wax rasuulku uu noo tilmaamay, waa wax markiiba nimcadeeda iyo barwaaqadeeda ay ku soo gaarayso. waqti sii gurigaaga dhexdiisa intaad fadhiisatid, gacmaha aad hoorsatid, ilaahay subxaanahu wa tacaala intaad weydiisatid, nimcada aad fiirisid, barwaaqada aad fiirisid, meel walbaba aad fiirisid, ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa u noqdo ha noqono, kuwa markii khayrka la isu sheego markiiba ku tawaaducaya oo fulinaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo. walaalayaal arrinkaa arrin sahlan ma aha. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu ka dardaarmay, wuu noo tilmaamay. caaisha radia allahu canha iyo axaadiis badan oo rasuulka ka sugan baa waxay odhanayaan rasuulku uu leeyahay salluu calaya, war igu salliya sala allahu calayhi wasalam. rasuulku wuxuu leeyahay igu soo salliya. wاجتahiduu fi الducaa'i, hadalka u fiirsada. war ducada ku dadaala inta aad ku dadaali kartaan. waquluu waxaad tidhahdaan allahuma salli calىa muxamadi wacalى aali muxamadi. nebi moxamed baa waxa uu noo dardaarmayaa in aan ducada ku dadaalno. salluu calaya wاجtahiduu fi الducaa'i, war rasuulka salى allahu عalayh wasalam igu soo salliya oo ducada ku dadaaluu leeyahay salى allahu عalayhi waalih wasalam. waxay caaisha leedahay radia allahu canha
xadiis ka sugan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu warinayo rasuulku uu keenayo ibni xabbaan iyo kayrkii sheekh naasirna uu saxiixinayo rasuulku waxa uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam idaa sa'ala axadukum falyukthir hadduu addoonku wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiisanayo ha badiyo bal hadalkaa aada ugu fiirso idaa sa'ala axadukum hadduu midkiin wax weydiisanayo rabbigii falyukthir ha badiyo fainamaa sa'alahu rabbahu fainamaa yas'alu rabbahu waxa uu wax weydiisanayaa waa rabbigii rabbigaa haddaad wax weydiisanaysid ma wax yar baad weydiisanaysaa mise wax badan baad weydiisanaysaa adoo mar walba lagaa doonaya in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala wax yar iyo wax badanba aad weydiisatid haddana waxa weeye soomaalidu waxay yidhahdaan weel weyn baa ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu baryaa baryadaada badi wax badan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiso khayr adduun iyo khayr aakhiro weydiiso sharti iyo dhibaatada inuu kaa xijaabo weydiiso caafimaad weydiiso wanaag weydiiso khayr oo dhan weydiiso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu abaalmarinayaa in uu ku siiyo maxaa yeelay rasuulkaa noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in aan arrinkaasi badinno inaan ilaahay tacaala baryadiisa badinno wallaahi qof kastoo annaga naga mid ah imtixaan qof uusan haysan ma jiro qof walbana waa la imtixaamaya qof walbana ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag adduun iyo wanaag aakhiro ayaa waxa weeye hadduu baryada badiyo lagu siinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu isku xirno aynu barinno qur-aankeenna aynu qabsanno kitaabkeenna aynu qabsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga badbaadiyo allahuma anfacna bima sarrafta fiihi min alaayaat wakafir cana bihi asayi'aat وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم وكما جعلتنا به من المصدقين فاجعلنا فيه معتبرين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه اللهم اجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك فينا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته اللهم اجعلنا من الذين